halkan u fadhinahay munaasabadan weyn ee sugan badnay hadii tabarka galin waxaan aad ugu mahadnaqayaa BIU-ga iyo tiimka hogaaminaya agaasimaha guud oo runtii markaas mashruucan aad uga soo shaqeeyay waqti badan soo galiyay runtiina waxa weyn haweeney dharka u fadhiyay inuu heer kalo xafladda maanta aynu halkan u fadhinay furitaanka aad baan ugu mahadnaqaynaa وتيم أنا كوكل صومها شغلة هي رجع مرة لقي ما دوم أنت هالكم وحين أوفرنا سو جود بنتا يفردا بركة مشروعة كرتون باللاردنتا مجالدا بالبراءين هالكم أوفرنا كنتي وحنو أدو كوكل صومها هاي أنا نخدنا إن كل عيدون تو سيدها فرنان وأنا تمضي حاجة مريض سومال لأن نقول داري نقول هو كامني أما جو كوزارة دهان جودي واهلن كشقين دونا إن قيميان وسعد هذا كوكلا صاران كمبنية إلى هاي وقري كل كمبنية إلى هاي وقري رفيعة الأقلام وجبت الصحف إنه صوتهم من الله يمنعنا لكن كل كهرباء الصمد على قري إلهي ما قري وإلى أسير قرب بينه وهجاتشينينا إنه وين الطريق يكون هجاتشينه بالين وجبهه هذه أردن سكولة تجان أردن هذه سكولة تجان وإذا معنا إنه مشروع عك عنك هاجر هدان تكون السنين هدان إلهي قري هدان إلهي قري كم السنين هذه أردن سكولة تجان وإذا معنا إنه كهور استجان وإلهي قري كم هو استاجيان هذا من الله يقول مركا تاكل كروين آمنا أنت إنك لما حيرنا هاي مركا إنه كفوا ذي إنه طريقا كفنان تأه أو أينو عدالة سمينا ومداس هل كاسن فردنا ونودارين أنا وجودي أنا كهو ولا نداري إيه ونودارين هنا إنه مدو عدالة فلان دارو حكت ضم بيسوي لا إنه مجرو تامر laga yimaado taasi waa sida inuu kambaniyada u kala saarayna halka soo xariistay taamarka laga yimaado mashruucu afar kooban oo weyn ka kooban yahay afartaba waa laga hadlay midi waxa weey waa ka community-ga koobaad oo quseeya hargeysa waxaan ku rajaynaynaa insha Allah qodobkii hore ay shirkaduhu isku tagaan hal mid noqdaan meel fiican buu marayaa wana ku rajaynaynaa inuu soo dhamaan doono مدويكن أما بيشن نقص وجهنا دي لا هذا أتبنى رجع في عنو كمان دمان دونه كلا بعدنا وحوي كان ما تينو فدينو وبور ما يسوى الله يسوى يدنا أي نفوري دونه بيشن ما يدخل دي لا هذا أصلا فليه شون كسوة بيش اللي حاد أي نفوري دونه كمان تيجي صدحات سووا حوي سكولة دوها يو قبل يكوشران waxaynu joognaa in fulintii ay shirkadihii ilaahay u qoray ay fuliyaan waxaan rajaynaa mashruuca saa inooga tegi doono waxaanu dardargelin waddo ka shaqeynaynay inuu mashruucani aynu fulino si mashaariicda kale inaga hortaagan yahay aynu helno waa ognahay 50 milyan baynu ka helnay markaasi 150 milyan laakiinse waxay ku xidhan tahay sidaynu u shaqeyno ku xidhan tahay sidaynu u shaqeyno waana shaqeynaynaa inta aynu joogno magaalooyinka aan hadda mashruuca ku jirin waxaan kala shaqeynaynaa inay soo galaan sida magaalada Burco iyo Argaabo iyo magaalooyin kale waaweyn oo dhanba maaha waxaan ilowsanahay oo waxaanu iyadana gacanta ku hayno sidaan uga shaqeyn lahay iyaguna u soo geli lahaayeen marka ujeedada guud ee uu wada soconaa ee madaxweynuhu hogaaminayo waxa weeye dhammaan qof kasta oo muwaadin Soomaaliland inuu helo light jaban inuu helo koronto jaban inuu helo dhammaan waxaan ku shaqeynaynaa wasaaradda ahaan madaxweynuhu hogaaminaya in dhammaan ay helaan umadu koronto jaban magaalada Berbera madaxweynuhu wuxuu kaga dhawaaqay in bisha 7 korontada laga dhigo 20 senti مشروع عنينا وحده بس وعداه 20 سنتي
waxaan rajaynayaa inaanu dadejino as much as kale sida ugu habboon iyagoo tiimkuna ka wada shaqeyn doona. Marka intaa laga yimaado, shalay annaguna ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan waxaynu ka shaqeynaynaa inaynu korontada hagaajino, laydhkii la dhimo, korontadii qiimaheedii hoos loo dhigo. shirkadii Berberina 4 saacadood bay shalay ka maqnayd waxa weeye ay korontadu ka maqnayd magaaladii Berbera. waxa la dul qaadan kara maaha. magaalada Berbera inuu ognahay in magaalooyinka ka duwan tahay, waa cimiladeedu ay ka duwan tahay. ognahay oo qofku saacad 20 daqiiqo aanu markaasi ka maqnaan karin laydhku, ay 4 saacadood shalay ka maqnayd. runtii waxa weeye ka wasaarad ahaan iyo commissionkaba tallaabada ku habboon baan anagu qaadayna. sharciguna siiyey xeerka tamartu noo ogol yahay arrimo noocaasi markay dhacaan, sharcigu waxbuu na siinayaa tallaabo aynu qaadi karno. commissionku inay tallaabo qaadi karaan, tallaabada waanu qaadaynaa. shacabkana annagaa uga mas-uula korontada Somaliland, iyagu waa adeeg bixiyayaal weya. waxaanu samayn doonaa guddi qiimaysa khasaarihii ka dhashay daminta leyrka 4 saaco magaalada ka maqnaa. guddi baanu u magacaabi doonaa, soona qiimeyn doonaa. wixii sharcigu ogol yahayna tallaabo aanu ka qaadayna. annaguna cidna ku xadgudbayn, sharcigu wuxuu noo ogol yahay tallaabadaasaanu qaadaynaa. ummaddan annaga uga mas-uula. kolley intaa marka laga yimaado oo mahadnaqaya shirkadaha soo xareystay birkan waqtiga ay soo geliyeen, oo arkayna shadadaha iyo kartoomadu intay la leeyihiin. insha Allah waxaan kartoomada waqti baad soo geliseen, muddo 60 cisho aad ka shaqeynayseen habeen iyo dhalarba. nasiib wacan baan dileena.